بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسان داودياشة تلفزيونka qaranka Soomaaliland xarunta wasaaradda warfaafinta gaar ahaan telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa waxa lagu soo booqday nin aan oran karo waa nin dhalinyaro aqoon badanna ay ku duugan tahay maadaama uu ka mid yahay saraakiisha UN-ta qaybta Kenya waa muwaadin reer Soomaaliland oo wax badan ka falanqeyn doona dhismaha ummadda reer Soomaaliland ay guntiga xidhiisha ka dhigtay ee wadada isku xidha gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco oo bulshada reer Soomaaliland qaybo badan oo ay leeyihiin qaar suugaan ku cabira qaar dhaqaale geliya qaar warar iyo barnaamijyo ka sameeyaba aan loo kala xarin ugu horeyn ku soo dhawo barnaamijkan aan ku xog waramayno wax qabadka wadooyinku ay bulshada u leeyihiin iyo aragtida kaalinta ay qurba joogta iyo dadka aqoonta bartay ka qaadanayaan aan idin xusuusiyo Mustafa Haykal Abdi Maxamed ayaan jeclayna barnaamijka TV-ga qaranka Soomaaliland gaar ahaan xarunta magaalada Hargeysa waxaan horta u hambalyeelayaa dhammaan dadka reer Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo wasiirka madaxtooyada mudane Xisi Xaaji Cali runtii wadada ceergaabo waxay tahay waa wada aad iyo aad u muhiim ah muddo 50 sano ka hor baa wadada ceergaabo lagu tirsan jiray laakiin waxay u baahnayd intaaba ku dhacbaa la waayay marka waxaan oran lahaa ku dhaca maanta aad iyo aad waxa lagu hambalyeeyaa madaxweyne Axmed Silaanyo waad mahadsantahay anaga hadaan ay qurba joogta iyo UN-taba aad iyo aad waxaan doonaynaa inaan ka hadalno arinta wadada ceergaabo anaga waxaan ay reer ceergaabo oo dhashay wadada ceergaabo runtii aad iyo aad baan ugu faraxnay wax qabadka wadada iyo dhagaxa la dhigay muddo 50 sano ka horna wadada ayaa la oran jiray waa la dhisayaa anigu way suurta gelin maanta suurta gashay marka waxaan jeclaan lahaa dadka reer Soomaaliland runtii waxa wanaagsan wax walba horta wax qabadka waxay u fiican wax qabadka waxa ugu wanaagsan iska wax u qabso maadaama ay wadadan ay tahay wadadii halboolihii isku xidhkii gobolka Ceergaabo iyo Burco waxaan jeclaan lahaa marka dadka inay aad iyo aad horta u dareemaan ay guntiga dhiisha iskaga xidhaan waxaan ku weydiin lahaa wadada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag safar ma ku tagtay maxaad sawiri kartaa dhibaatada ay leedahay wadadaasi oo dadka qaar hadii ay ku xanuunsadaan ama baa socdaal dheer u gashaado nin dhalinyaro xooga dhibaato badan ay wadada kala kulmi kareen oo muuqaal nooceeyay leedahay wadadaasi iyo dib nooceeyay bulshadu kala kulmi jirtay runtii wadada Ceergaabo dib badan bay leedahay waayo waxaad ka garan kartaa hooyada xanuunsato marka la siraado Burco marka la siraado Ceergaabo laga soo qaado Burco la keeno kale waa dareemi kartaa cidkan hadalkeeda wada way wadada waa wada aad iyo aad u dhibaato badan runtiina wadada waxyaalo fara badan baa dhacda oo wadada waa muhiim aniga kullee mar baan maray oo waxaas leeyahay maran doonaya intaanan safar Nairobi u bixin marka wadada waa wada aad u dhib badan runtii 370 kilomitir weeye ma oran kartaa hadii bulshada Soomaaliland ay isku tagto oo isku duubnaato shacab iyo dawlad iyo xukuumadba mucaarid iyo muxaafid waxa laga meel dhalin karaya hadafka iyo himilada Soomaaliland ay leedahay oo ay ictiraaf la helo dalkana uu gaaro dhinaca horumarka wax badan ku talaabsado runtii waan oran karaa waayo wadada Ceergaabo kale marka hore markaan ka hadalno wadanka China kale 36 sano ictiraaf ma lahayn ictiraafkana marna adaa raadsada marna waa lagu soo raadsadaa marka waxaan u maleeyaa hadda wax qabadkiisa aad iyo aad buu muujisay Saleemaan Xagla Toosiyo aad baan u salaamayaa waayo sidii wax u qabtay boohodno kale waayo waxaad ogaataa qofka muwaadinimadiisa waxaad ka garan kartaa isbitaal dhan buu sameeyay oo ku kacayso half million oo wuxuu ka sameeyay state-ku u dhashay wuxuu isbitaalka u sameeyay wuxuu isaga muu doonay inuu ka ganacsado wuxuu ka dhigay free si ay dadkiisa wax ugu qabto kale waxaan ku weydiin lahaa Soomaaliland 22 sanadood aan oran karnaa sanadkan hadii 23 sanadood Soomaaliland ay madax banaanayd oo ay Soomaaliya ka goosatay inteeda kale horumarada ay Soomaaliland gaadhay ee qurba joog ahaan ku muuqda maxaa ka tilmaami kartaa wallahi waxa ka tilmaami karaa wax fara badan oo waxaan number 1 Somaliland ودل هذه دتكيس واحد أوراق رئيس مال وروي الفاميل
ودد أبيض دد أبيض ولا وانا دد أبيض حالته ونكستهاي واحد كجركتها سوماليا وماشى بأفر لو تسع جوانيسو لكن سومالان وذلك أنا بطه بعدما سومالان إذا نبض هنا هربر واحد كجرتها وضع كريه لوجود لسه هربره إلى بوركو لوجود لسه وقفتك والله ونوم مقدان بركة معارض يمحافظ بقى waxaan oran lahaa bahanta maalin mucaarado lama wataagno Somaliland intii ay jirtay wax badan oo horumar ay gaadhay xukuumadan talada imika aysan waa xukuumadda ugu wax qabadka badan ee Somaliland soo martay afartii xukuumadood ee u kala dambeeyay maxaad oran karaysaa uu sahleen kaalinta qurbajoog reer Somaliland ay ku leeyihiin in dalku halkan gaaro oo mid nooceeya aad badan ma santahay runtii qurbajoog hadaan nahay bariga hore Somaliland intaqaano ma jirto intuu madaxweynaha hore haystay hadda laakiin waxaad ogaataa gorgortanka UN-to kale saami qaybsigo kale adduunyada ilaa madaxweynayaasha ku weydiinayaan waxaan noo muuqata marka in horumarka hadda aan taagana inay tahay the best one aqoonsiga inuu ku dhow yahay aqoonsiga inaan heli doono laakiin waxaan oran lahaa reer Somaliland mid baan oran lahaa maanta kale baalin mucaarado ma dadkeena maxaafadooda noqdaan jeclaan lahaa waxa jirta aqoonyahan badan oo Somaliland leeyo aad ka mid tahay oo qaramada midoobay u shaqeeyo beesha caalamka ku xiran kaalintii leeg baad ka qaataan saadaad sheegto qoladiina reer Somaliland u shaqeysa shakhsiyaadkiina wax bartay ee aqoontu u saamaxday wali UN-ta iyo shirar caalami iyo Somaliland maxaad ka qabateen oo maxaad Somaliland ku soo kordhiseen ilaa deer aad iyo aad badan ma santahay oo afar la watasac shirar badan baan qabanaa shirarka aan qabanno wax kale uma qabanno waxa ka wada hadalnaa aqoonsiga Somaliland iyo reer Somaliland UN-ta shaqaalaha UN-ta daliya dawladba marka aan wax isweydiinayno waxyaalo badan baan qabanaa oo aan ha ahaato xagga dawladdeena Somaliland iyo saan u garab istaagno marka run ahaantii wax qabadkeena annaga aad iyo aad buu muuqdaa waa maxay fariinta aad bulshada reer Somaliland u soo dirayso ee aad u marinayso telefishinka qaranka Somaliland oo bulsho badan ay daafaha dunida ka daawato taasina ay ku timid dadaalka xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweynaha qaranku ay gaarsiisay telefishinka qaranku oo meel kasto daafaha dunida laga daawado wallahi horta waxaan oran lahaa dhammaan dhalinyarada reer Somaliland waayeel aqoonyahan waxgarad waxaan oran lahaa maadaama waxaan gaarsiin lahaa fariinta kaliya aan gaarsiinay waxay tahay horta waxaad aragtaan wax kale ha eegine dalkeena iyo waxaad eegtaan iyo dalalka kale waxaan oran lahaa horta nabadda waa horta nabadda aad ha loo ilaaliyo waayo nabad markii la helaa ayaa wax walba iska yimaadaan waxaadna oran lahaa war wuxuu noqon doonaa Somaliland waddanka Brunei oo kale waxaan u maleeyaa dhulkiisa inuu noqon doono dahab marmar leh waxaan oran lahaa war sameerina barnaamij kooban oo aanu la yeelanay Mustafa Haykal oo kamid ah qurbajooga reer Somaliland khaasatan saraakiisha hay'adda UN ee qaybta Nairobi ka howlgasha oo inooga warramayay wadada iyo ahmiyadda ay leedahay bulshada reer Somaliland haddii ay isku tagto waxay qabsan karto iyo waliba sida qurbajooga reer Somaliland oo lafdhabar ka ah jiritaanka qarankani ay hambalyo iyo bogaadinba ugu dirayaan xukuumadda talada haysa ee dhinacyo badan horumar ka sameysay Mustafa inta barnaamijkan oo kala ku kulmayno waxaan uga mahadnaqaynaa waqtigiisa ودمان هالوذنية تلفزيون قرن كسومالنا ويدكون دافيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.